بسم الله الرحمن الرحيم أنا ku hadlaya magaca kooxawleedkii ka soo shaqeynayay inta badan kootada haweenka waxaan halkan baaq hambalyo uga diraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo golaha wasiirada oo maanta ay taariikhdu ahayd 6 bisha 6 shirkoodii golaha cabinetka ku baaskareeyay ama ku ansixiyay in kooto boqolkiiba 20 loo qoondeeyo haweenka taas oo ku jirta maxay tahay sharciga golayaasha maxay ahaydeen deegaanka iyo tan baarlamaankaba lagu dooran doono waxaan halkan maxay ahaydeen ka codsanaynaa golayaasha ay u tagi doonto ee ah golaha maxay ahaydeen labada gole sharci dejinta ee kale in iyaguna sidoo kale insha Allah taala iyaguna ay u qaataan oo ay u baaskareeyaan maanta ay taariikhdu tahay 7 bishii 6 2018 waa maalin ku qorantay taariikhda dimuqraadiyadda iyo geedi socodka dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta golaha xukuumadda ay hogaaminayo madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi waxay ansixiyeen xeerar isku lifaaqan oo lagu maamulayo doorashooyinka soo socda xeerarka waxa ku jira qoondo boqolkiiba 20 oo loo qoondeeyay haweenka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa tallaabo loo qaaday xagga dimuqraadiyadda waxay keeni doontaa qaybta ugu ballaaran bulshada oo haweenka in ay golayaasha soo fadhiistaan codkoodana la maqlo marka runtii waxaanu aad u hambaliyaynaynaa ugu horeyn komishanka doorashooyinka qaranka oo ka soo shaqeeyay xeerarka la isku soo lifaaqay lana soo dhaxgeliyay kootada haweenka ee boqolkiiba 20 marka labaad waxaanu hambaliyaynaynaa golihii xukuumadda ee maanta ansixiyay waxa kale oo iyagana halkan runtii aanu codka bulshada rayidka iyo codka kooxawleedkii muddada dhowrka sanaaba hawshan ka shaqeynaysay aanu iyagana halkan baaq uga soo jeedinaynaa golayaasha sharci dejinta ay hawshan u tagi doonto waxaanu leenahay barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen taariikhda qormaysa qayb ka noqda baanu iyagana leenahay annagoo og inay muddo dheerba nagala shaqeynayeen haddii guddi hoosaadyadooda tahay iyo hadday tahay xubnaha ugu badan ee baarlamaanka waxaanu leenahay maanta hortiinay taallaa taariikhda qormaysa ha ka hadhin horeba wada ku jirteen waxaanu rajaynaynaa sida golaha maanta loogu soo ansixiyay xukuumadda in golayaasha ku xigaan ay ansixin doonaan haweenkuna ay heli doonaan wakiilo matala codka ugu badan ee bulshada oo haweenka aad baad u mahadsantiin bismillaahir rahmaanir rahiim waxay mahad iska leeyahay oo fursadan oo ogolaaday maanta inaanu ka qayb galno aanu kana baryeynaa inuu nagu simo kameedhalkeeda waxa weeyaan maanta maalin taariikhi ah oo guul u soo hoyatay haweenka Soomaaliland ummadda reer Soomaaliland iyo haweenka caalamka meel kasta joogaanba waxaanu baaq hambalyo halkan uga diraynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dardar iyo karti ka muujiyay arinta meelmarinteeda waxaanu halkan iyagana baaq hambalyo uga diraynaa guddiga doorashooyinka oo iyaguna ka soo shaqeeyay xeerkan iyo dadkii kale ku hawlanaaba arintan waxaanu iyagana halkan baaq codsi ugu diraynaa golayaasha ay u tagi doonto xeerkan inay iyaguna hirgeliyaan maanta waxa weeyaan maalin ay dimuqraadiyadda Soomaaliland ka amba qaaday waxaan idinka codsanaynaa in idinkuna aad halka ka sii hirgelisaan ma aha doorashooyinka inay ka qayb galaan dumarku inay soo fadhiistaan golaha wakiilada ee waxa weeyaan inay sidaan codkii haweenka oo tii umulahayd iyo tii uurahlahayd iyo tii shaahiibinaysa iyo tii maqaayad fadhiday intaba codkooda in lagu daro ajandaha qaran marka waxaan idinka rajaynaynaa idinkana in halka ka sii amba qaadaan oo arinta meelmarinteeda dhexdaada xirataan wassalaamu calaykum waxa maanta golaha xukuumadda ee uu gadwadayn ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay ansixiyeen kootadii haweenka oo runtii muddo intii dimuqraadiyadda Soomaaliland ay jirtayba dadaal badan iyo juhdi badan haweenweynaha reer Soomaaliland ay geliyeen waa bilow fiican waa ku hambalyeynaa waa dhamaystir dimuqraadiyadeed hambalyo ayaanu leenahay haweenweynaha iyo hablaha runtii reer Soomaaliland oo fursadan maanta ay u soo korodhay sidoo kalena
waxaan baaq adag aan u diraynaa golaha kale ee sharci dejinta ee ay tegi doonto runtii muxuu ahaaye xeerkaas la ansixiyey sidii iyaguna ay u dhaafin lahaayeen una sii dhammaystiri lahaayeen qaybta sharciyadda ee run ahaantii ka dhiman ayaan iyadana ugu baaqaynaa haddii ilaahay idhaa waxaan ugu dambeyn soo jeedinaynaa hablaha iyo haweenweynaha fursad 20 sano la raadinayay baa maanta timid fursaddaas sidii looga midho dhalin lahaa in loo wada kaco oo hablaha iyo haweenkuba ay runtii u kacaan haddii ilaahay idhaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi